aad baa u mahadsantahay Nadaara ilaa hadda dadka la qabqabtay ee 6 qof kuma jiraan Soomaali sidaan la soconana hawlgalkii shalay 6 qof lagu soo qabqabtay 3 qof oo kamid ah oo laga qabtay deegaanka Stratford oo ah goobta ciyaaraha Olympigu ay ka dhacayaan waxa la sheegay inay ahaayeen 3 qof oo walaalo ah oo ka soo jeeda dalka Bangladesh ama Bengali ah waxaa kaloo iyana jiray nin kale oo lagu magacaabo Richard Dat oo ah nin ku soo biiray diinta Islaamka asal ahaan British ah sanadkii 2009 ayuu diinta Islaamka qaatay waxaana si weyn loogu yaqaanaa weerarka dhinaca afka ah inuu ku qaado ciidamada reer galbeedka ee ku sugan dalalka Afghanistan iyo Iraq ninkaasna waa xaqiijiyeen bilaysku inuu ku jiray raggii shalay lagu qabqabtay hawlgallada looga shakisan yahay falalka argagixisanimada in laga geysto magaalada tan London xilli ciyaaraha Olympigu ay bilaaban doonaan 29 bishan July dhinaca guud ahaan marka la eego deegaanka Ealing oo ay ku badan yihiin dadka Soomaalida qiyaastiina ilaa 20 kun oo Soomaali ay degan yihiin ilaa iyo hadda cid Soomaali ah ma jirto oo kamid ah dadkii halkaas lagu qabqabtay waxaan moodaa in dad badan oo Soomaali arintaas runtii ay ku farxeen maadaama markii hore uu jiray walwal ah in 6 qof ay Soomaali ka mid noqon karaan laakiin haddana guud ahaan waxa jirta saameyn in dadka muslimiinta arimahan loo arkay inay ku yeelan karaan waxaana soo badanaya hawlgallada ciidamada bilayska iyo kuwa sirdoonka ee MI5 ay doonayaan inay ku xaqiijiyaan gabi ahaanba amniga magaalada tan London si wax dhibaato aan loogu geysan ciyaaraha Olympiga ee dhawaan furmi doona oo meelo fara badan oo caalamka looga iman doono mas'uuliyiin sarsarana ay ka soo qayb gali doonaan arimahan oo dhan waxa dhinaca kale ay ku soo beegmayaan 2 maalmood ka hor iyadoo madaxa hay'adda sirdoonka dalkan Britain Jonathan Evans uu sheegay inay jirto cabsi fara badan oo laga qabo dagaalyahano ka iman kara dalalka Mali, Yemen iyo Soomaaliya sidaas daraadeedna cabsidaasi ay tahay mid jirta oo ay ka feejigan yihiin in badan oo kamid ah warbaahintuna waxa ay ka hadlayeen khataraha mararka qaarkood ka iman kara dhinaca Soomaaliya maadaama xilligan ururka Al-Shabaab oo u xuubsiibtay Al-Qaacida laga yaabo in dad halkan ka tagay oo dhalinyaro oo Soomaali ah halkaas marka ay ka soo dagaalamaan inay dalkan dib ugu soo noqon karaan oo dhibaatooyin ay geysan karaan marka dabcan ilaa iyo hadda macluumaadkaas guud ahaan hawlgalladii shalay waxa ay muujinayaan ama ay cadeynayaan in cid Soomaali ah aanay ku lug lahayn